السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaynaa isku dhufashada tiro dhafan iyo jajab qumane. Tiro dhafan iyo jajab qumane sidaas ku dhufta ayaan qaadanaa. Tiro dhafan waxaa lahaa jajabka leh horgale tusaale 2 3 loo qaybiyay 2. qaabkaas ayaa waxaa lahaa tiro dhafan waa jajab leh horgale. haddaba marka aan doonayno in aan isku dhufano tiro dhafan iyo jajab qumane waxa aan tirada dhafan u rogaynaa ama u bedelaynaa jajab ma qumane. kadibna waxa aan raadinaynaa taranta labada jajab. markaan doonaynaa inaan isku dhufano tiro dhafan oo qaabkan ah iyo jajab qumane waxaan tirada dhafan u rogaynaa jajab ma qumane. macnaha waxa waaye tiradan dhafan ayaan waxaan u rogaynaa jajab ma qumane oo saan u rogaynaa laba horgalaha 3 loo qaybiyo Soomaa. labadan ayaan tiradan hoose iyo tiradan horgalaha ayaan isku dhufaynaa. laba ku dhufo waa 4. afartan waxaan ku daraynaa tirada kore koreeya ah ee 3. afartan ayaan waxaan ku daraynaa 3. waxay noqon kartaa 7 loo qaybiyay labada hoosta soo qaadana. maxay ahayd tira dhafan ahayd waxaan u bedelnay tira jajab qumane u bedelnay. jajab qumane waxaa la tira hooseeyay uu yar yahay koreeyana uu weyn yahay. jajab qumane waxaa la tira hooseeyay uu weyn yahay koreeyana uu yar yahay. tira dhafan bay waxaan bedelnay tiro jajab qumane aan bedelnay. markaan saas ayaan sameeynaa markaan doonayna inaan isku dhufano tiro dhafan iyo jajab qumane waxaan tirada dhafan oo tiradan ah u bedelaynaa jajab qumane qaabkan ugu bedelaynaa. hooseeya ayaa horgal ku fanay waa 4. waxaad ku dari koreeya oo 3 7 loo qaybiyo laba hooseeya soo qaanay. kadibna waxa aan raadinaa taranta labada jajab. waxaan raadinaa taranta ama isku dhufashada labada jajab ee lagu siiyay. tusaale qaadayna tusaale koobaad. tusaale koobaad waxaa la raadi taranta tiran soo socoto waa 3 horgalaha 2 loo qaybiyo 3 loo dhuftay 3 loo qaybiyo 4. waxaan iska rabaa taranta ama isku dhufashada. qaybtan waa tiro dhafan ah qaybtan waa jajab qumane ah. marka tiradan dhafanta ayaan jajab qumane u bedelaynaa. maxaan sameeynaa horta soo qaasideeda waa 3 2 loo qaybiyay 3 oo lagu dhuftay 3 loo qaybiyay 4. waxay la mid tahay qaybtan oo tirada dhafanta ah ayaan tira waxaan bedelaynaa jajab qumane. waxaan sameeynaa hooseeya ayaan horgalaha ku dhufanay kadibna koreeya ku daray 3 ku dhufa waa 9 2 ku dar waa 11 oo loo qaybiyay 3 soo qaado hooseeya lagu dhuftay soo qaado 3 loo qaybiyay 4 sida soo qaado maadaama ay jajab qumane yahay. kadibna koreeya ku dhufo hooseeya ku dhufo ay 12 3 ku dhufo waa 33 oo loo qaybiyay 4 waxa ku dhufataa 3 waa 12 ay waxaan noo sabaxay 33 loo qaybiyay 12 ma sii qaybsan karto halkaas ay ku ogtahay. tusaaleena koobaad ayaa qaabkaas oo shaqeynay. tusaale labaad waxaa la raadi taranta 7 loo qaybiyay 10 oo lagu dhuftay 5 loo qaybiyay 6. waa tiro labadu waa tiro waa farashan jajab qumane. marka noo soo qaad 7 loo qaybiyay 10 noo soo qaad oo lagu dhuftay 5 loo qaybiyay 6. haye koreeya ku dhufo hooseeya ku dhufo 7 waxa ku dhufataa 5 macnaheedu 7 oo lagu dhuftay 5 loo qaybiyay 10 oo lagu dhuftay 6. ay waxay la mid tahay 7 5 ku dhufo waa 35 oo loo qaybiyay 10 6 ku dhufo waa 60. ay laba tiro waa sii qaybsamay oo 5 iyo eberta waa sii qaybsamay. marka 35 waxa qabeynaa 5 oo qabeynaa 35 u qaybi 5 u qaybi oo loo qaybiyay 60ka waxa u qaybisay asna 5 u qaybi 35 haddaan 5 u qaybino waa 7 loo qaybiyay 6 haddaan 5 u qaybino waxaa noo soo bixi 12. jawaabta noo soo baxay waxaa waaye 7 loo qaybiyay 12. 7 loo qaybiyay 12 ayaa noo soo baxday tusaalaha labaad jawaabtiisa. tusaalaha saddexaad
waxaa la raadi taranta tiradan laba loo qaybiyey shan oo lagu dhuftay shan horgalaha hal loo qaybiyey saddex. maxaan sameynaa horta noo soo qaad laba loo qaybiyey shan noo soo qaad oo lagu dhuftay leh shan horgala ah hal loo qaybiyey saddex. waxay la mid tahay qaybta hore ma laha maxaa la tira dhifa maane sida u soo qaado laba loo qaybiyey shan sida u soo qaado oo lagu dhuftay leh qaybtan ayaa tiranta dhifanta ayaa waxaan rabnaa inaan bedelo jajab muqmane. waxaan sameynaa marka shanta ayaa waxaan ku dhufaynaa saddexda halka ku dar oo koreeya ay saddex shan waa 15 halka ku dar oo koreeyaha waa 16 oo loo qaybiyey saddex soo qaado hooseeyaha ay waxay la mid tahay marka koreeya ku dhufo hooseeyaha ku dhufo ay laba wax ku dhufataa 16 labadan 16 ku dhufana waxaa noo soo bixi 32 oo loo qaybiyey shan saddex ku dhufa waa 15 noo soo baxaysa. jawaabta noo soo baxday waa 32 loo qaybiyey 15 maadaama ay sii socon karin oo koreeya wuxuu wataa waa tirajisa labani kisi u dambaysa marka ma sii socon karto markaas ku ogtahay jawaabta 32 loo qaybiyey 15 ayaa noo soo baxaysa.